kasoo yeerayay hadalla Soomaali qanciya wax ka qaban kara wanaageeda dhiqi kara ma nin mas'uul ah oo xil maamul haya inuu ku hadalada qaarkeed oo uu yiraahdo dhiigi cabaanahay dadkan dilaa dadkan gowracaya meel hablaan dadka ku laaya taasi diinta islaamka bil Ramadaan baynu ku jiraay iyo diinta muslimnimo diinta darisnimada iyo ta Soomaalinimada dhaqanka Soomaalinimada mid kuma fiicna anagu dadka ma dilo dhiigi cabna ma nihin dhaqan iyo Soomaali dadka waqooyi joogana wanaag iyo sharaf baa naga dhacaysa gabdha haday yihiin wiilal haday yihiin mas'uuliyad iyo waxgarad haday yihiin reer waqooyi waa Soomaali sharaf iyo hawada naga dhacaysa soo dhaweynayna ma dilin mana dilayno halkan waxa la yiraahdaa Taleex Muusow Sheekh Muuse Taleex waa meeshii 1900 laga bilaabay xornimadii ugu horeysay ee Soomaaliya ilaa iyo haddana waa jooga ragii ilaa xilliga iyo hawshan waday iyagoo ku faanaya ama ku dad baanu gowracnay ama ummad baanu waxyeelay oo xasuuqnayna ma oran nin walba waa garashadiisa Soomaaliyeed waxay saabto wanaag bayna sugu imanaysaa ninkii darajo ka dhiganaya in Soomaali la dilo oo la xumeeyo oo wixii la doono lagu sameeyo oo la laayo ay darajo u gaarayso adiga ku taala anaga noo taalo laakiin waxaan leenahay Soomaali maanta 7 sanadood bay ku jirtay ragga iyo rag limidaana waday wax garadka Soomaaliyeedna gacan ugu ma jirin maanta wax wanaagsan baa soo socda hal laga daayo Soomaali xabad ma baahne hal la keeno dawlad Soomaaliyeed hal la raadiyo mustaqbalkii Soomaaliyeed hal la dhiso dawladaha adduunka hadda hareerayna kaga xeeran kuwa adduunka ugu dhaxal qabana maanta Soomaaliya haysta waa dadkii reer ay dabay oo kale iyo reer Masar oo kale iyo dawladaha Carbeed muslimka oo ahayn culayska iyo ciriiriga ay maanta ku hayaan oo dawladaha dalkoodiba intay niceen ay leeyihiin anaga Soomaali baan ka talinayna dawladaha Soomaaliya jooga oo la Soomaali baan ka talinayna anaga waxaan leenahay Soomaali weeye dalkeedana iyada leh ninkii dal kale how dawlad Soomaali kala hadal iyada qusaysaa laakiin yaan la faragelin arrimaha Soomaaliya oo waxay xaq u leedahay yaan laga hor iman